عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين من معاني وإذن له رمضان كريم رمضان وناكسن بشي رمضان بان إنو بلا ميسو الحمد لله كوي كفائديستو الله نغدقو سونكوغنا وقود ماذا برواقو يبشبش maanta waxaa idin duubayaa videogii Ramadan design haduu Ilaahay idmo aniga saa hore idinku sheegay hawl badan iyo waxaas iyo magalo mana jeceli shaqo aan dhamaanin wax yar iska simple guriga ka dhigtay asxaabta cusub waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabtii hore ee la joogay waa mahadsantihiin ha iga hakranina subscribe ka share like community qurux badan anigana insha Allah hadii Ilaahay idmo idin kama hakranayo videoyo qurux badan iyo fikrado qurux badan hala soo dhawaado miiska afurkana sidaan baa loo diyaariyaa Ramadan mubaarak mar labaad iyo mar saddexaadba hadaa guriga aad ka dhigatid wax yar oo iska fudud oodan xafashka isku badinin shaqada ma kugu badnaanayso sababtoo ah gabdho badan oo abayaal ayaa idhaho muno sidee hawsha kugu fududaataa sidee gurigaaga kugu nadaamsanaada ilmaha waxa loo sameeyaa qol ay ku ciyaaraan alaabtooda halkaas loogu daadiyaa ku ciyaar free looga dhigaa hadhowtina waxa la yiraahdaa ku celiya meeshoodii meel walba alaabta aad ka soo qaadin ku celiya ilmaha sidaas hadii aad ku soo tarbiyeysid ma kaaga mashquulayaan qol jiif iyo qol fadhi iyo meel kaleeto laakiin ilmaha hadii aadan barin guriga maxaa la dhahaa markii la dhisaayo hadaan dhagax iyo shub iyo lagu soo dhisin macquul ma noqonayo guriga inuu istaago soo maahan ilmaha marka intay yar yihiin ay 6 bilood 10 bilood sanadkii markuu dhaqdhaqaaqa bilaabay inuu darbiye qabsado waxaas wuxuu taabtaa dadada hooyaha taaban dhig meeshiisii ilmihii wuu baranayaa wuuna ku weynaanayaa laakiin ilmo weynaaday oo 12 sano jira ama 2 sano marka uu gaaro hadii aad dhahdid guri baan sharaxanayaa ilmihii maba yaqaanaba waxaan hore umuusan soo arki jirin inuu ka jajabiyo oo isku dhib banaatiin way dhacaysaa laakiin markuu yar yahay hadaad iskaga tarbiyeysid ma sha Allah wuu la qabsanayaa hooyo walbana waxa kula dardaarayaa in aad beeska ka soo bilowdeen hadii Ilaahay idmo وولاشين من معاني من يحيى أو إذن له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.